بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gobonimadu waa geed ku baxa dhiiga geesiga waxaanu u tacsiidaynayna geesiyaashii waxa weeye maxaa ku radaa shahiiday maxaa ku radaa saddexda wiil saddexda nin iyo gabadha ahaa maxaa ku radaa laba saddexna maxaa ku laba nin iyo gabadhna saaka la dilay iyo wiilkii xalayto la dhaawacay oo dhaawacii u dhintay waxaan leenahay mushahada baa tihiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannadiisa aad gelaysaan waayo waxa idin dilay gacan idinka xaq daran baa idin dishay xaquuq aad leedihiin baa laydinku dilay ma noolaan kartaan baa laydinku dilay ma xoroobi kartaan baa laydinku dilay xaq ma lihidin baa laydinku dilay marka waxa weeye maxaa ku raday waxaad tihiin ahlu jannaatiin insha allah bidmillaahi kariim kuwa idinka soo horjeedana waa ahlu naar wey waayo sababtu tahay xaquuq ilaahay idin siiyey oo waxa weeye maxaa ku dhahday magarasa xorriyad ah ayaa ilaahay idin siiyey inaad cirdigeena iyo sharafteena iyo karaamadeena ilaalisaana waa diin dayuuskuna janno ma galo sidaa darteed waxaan leeyahay dadka waxa weeye guud ahaan waxa weeye gobolka Sanaag dega dhammaantood bari iyo koonfurba waxaan leeyahay aad baad u habsaanteen aad baad u dambaysaan odayaasha koofiyad baclayaasha ee daalimiinta ee nabadgelyada aan jirin doonaya waxa weeye maxaa kale iyo qof kasta oo waxa weeye maxaa kale aan ka ama garanaysaa aanay ka go'nayn waxa weeye xoreynta ama difaaca sharafteena iyo cirdigeena iyo karaamadeena iyo maatadeena waa inaad isaga halkaa ka toogataan dhafarka waa inaad ka toogataan isaga waxaan leeyahay baadhigayga bacabdalle xabad baan haddaan isu dul taago waxa weeye baadhigayga bacabdalle waxaan leeyahay waa laydin xamanayaa si fiican baa laydin xamanayaa waxaa laydin xamanayay ilaa iyo waxa weeye maxaa ku halganku markuu bilowday hub ma iibsan oo waxa weeye maxaa ku dhahday ma diyaar garoobin oo waxa weeye waxba kuma qaadan wixii laascaanood ka dhacayay oo waxa weeye wiilal khayr badan oo magaranaysa aad iyo aad geesiyaal ahi way dagaalka way ku jireen wacdarana way ka dhigeen laakiin gacmaha iyo lugaha hadaysan waxa weeye sidaa darteed waxaan leeyahay waxa illa alaan dagaalkii oo socda ayaad waxa weeye daawadayaal ka ahaydeen odayadan sheegaya cuqaashan sheegaya waxa magaranaysa daawadayaal baad ka ahaydeen waxa daawadayaal ka ahaydeen waxa weeye maxaa ku dhahday sanadkii waxa weeye la xoroobay ayaad daawanayseen oo aad maxaa ku dhahday nabadgelyo aan jirin aad waxa weeye maxaa ku dhahday maqaar saar aad ku wareegayseen waxa weeye shirkii Naali Axmed baad ku ceebowdeen oo aad kala furfurteen oo kala qaybiseen waxa oo dhami wax buugga idinku jira weeye waana wax sax ah weeye waxaan leeyahay waxaad maanta tirtiri lahaydeen maalinta aad tirtiri lahaydeen waa maanta weeye dhalinyarada jamaahiirta ee baadhiga bacabdalle waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo waa inaad muuqataan qof kasta oo idinka soo horjeeda oo waxa weeye maxaa ku raday nabad aan jirin doonayana waa dil isaga ka bilaaba wax allaale wuxuu doonaa ha noqdo go'aanku waa kaas weeye insha Allah ta ayaad sharaftiina ku soo celin kartaan ta ayaad karaamadiina ku soo celin kartaan waxa weeye maxaa ku raday odayadana waxaan leeyahay ka waantooba wax aad wadaan oo waxa weeye dadka magaraysa ku hogaamiya naftu waxa weeye maxaa ku raday habeen bay baxdaa ama maalin waa dhimanaysaan kulli nafsi daa'iqatu mawt dadka sharaftooda iyo cirdigooda iyo karaamadooda waxa weeye difaaca oo dulliga aad waxa weeye u garbaduubaysan joojiya baadhiyada kale waxaan leeyahay sidaas la madabeen caraale waxa weeye inkastoo qaar badan ay dadaalayaan waxa weeye haddana waxa weeye maxaa ku qaar baa qaybsan kooxda dabaare sidaas la midaan leeyahay dadka kale waxaan leeyahay waxa weeye sidaas la mid iyagana beena samatar iyo barikaye Naali Axmed waa diyaar ugaariyahan waa diyaar SSC dhulmaanta waa diyaar SSC waa diyaar harti waa diyaar cid waliba waa diyaar laakiin idinka la rabaa talabadiina la doonaya waxaan leeyahay dhaqaaqa insha Allah bidnillaahi kariim allana haydin guuleeyo kuwa qurbaha joogana waxaan leeyahay waxa weeye halganka waa in laga dhabeeyo weeye abtiyaashay maxaa ku dhahday waxaan leeyahay abtiyaal waxa weeye waqtigu waa ordayaa dadkana waad arkaysaan sida loo qalanayo waxa weeye soo dhaqaaqa oo waxaad eegataan ma jiraan waxa weeye maxaa ku dhahday halganka soo gala markaad idinku soo gashaan ayaa harti weyna imanaya insha Allah bidnillaahi kariim marka waqtigu waa seef sida ugu dhaqsaha badan waa inaad waxaad haysaan aad soo dhigtaan soo dul dhigtaan magaalada Ceergaabo insha Allah bidnillaahi kariim dadkana waa in dulmiga laga qaadaa nimanka la yiraahdo SNM iyo kooxda qowleysatada waxaan u sheegayaa laba Ceergaabo labay noqonaysaa laba mid bay noqonaysaa Ceergaabo inay noqoto meel laga guuro oo lama degaana oo qof bini aadan aanu ku noolaan oo dambe iyo inay noqoto meel waxa weeye qofku ma garanayso qolo waliba ay aayaheeda ka tashato oo ay geesteeda maamusho labada mid bay noqon doontaa insha Allah bidmillaahi kariim ka dantu idinku jiro shaaga idinku ka dantu idinku jiro dadka waxa weeye reer Ceergaabo maan la hadlayaa
waxa weeye dhinacan waxa weeye maxaa kora kasoo jeeda SNMta doorashada idinkaa leh inaad doorataan in ceerigaabo aynu ka wada guurno oo aan ceerigaabo aan magaalo dambe aanay noqon iyo in aad waxa weeye maxaa kula aad ku qanacdaan oo aad qanacaysataan dhinaca aad magaranaysaa ilaahay idin siiyey insha Allah bidmillahi karim taasayna tagaysaa guul iyo gobonnimo aad leeyahay dhammaan geesiyaasha SSC iyo maxaa kula meel ay joogaanba waxa weeye halganka waa in laga dhabeeya waa inuu joogsadaa dhiigga macna darrada maalin walba loo qubayo idinkoo hareer taagan waxaan kaloo idin leeyahay aan ku soo gabagabeynayaa waxa weeye iska ilaaliya dadka maxaabiista ah dumarka caruurta dadka aan dagaalka ku jirin waxa weeye iska ilaaliya dadkaas waxa weeye maxbuusku waxa weeye maxaa kula lama dili karo dadka waxa weeye maxaa kula aan dagaal ku jirin lama dili karo sharcigu ma ogola waxa weeye maxaa kula ma cadhadu inay idinka qaalib noqoto daal muxaaribka ayaynu la dagaalamayna insha Allah bidmillahi karim meelu jooga muxaarib waa qofka dagaalamaya ee qoriga sita kaas waxa weeye waa dil weeye insha Allah bidmillahi karim ilaahina idin guuleeyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh